shirkan ballaaran oo lagaga hadlayay sidii loo yeegleeli lahaa isla markaana loo dhisi lahaa dekad cusub oo kalluumaysay oo laga dhisay magaalo xeebeedka Lughaya ee gobolka Awdal ayaa maanta lagu qabtay hoteelka Rays ee magaalada Boorama. shirkan oo ka soo qayb galeen wasiirro ka socday maamulka Soomaaliland oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda beeraha, wasiirka wasaaradda dib u dejinta, mas'uuliyiinta ururka horumarinta ee Ardaa, maamulka gobolka Awdal iyo ka degmada Boorama, madax dhaqameed, aqoon-yahan, qurba joog, haween iyo marti sharaf kale oo aad u fara badan. shirkan oo agaasinkiisa iyo qabanqaabadiisa ay lahaayeen madaxda iyo mas'uuliyiinta ururka horumarinta ee Ardaa ee loo soo gaabiyo Adal Resources and Development Assistance Association oo ah urur ay leeyihiin qurba joogga reer Adal ee degan waqooyiga Ameerika ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorama ee gobolka Awdal. gudoomiyaha ururka Ardaa Ibrahim Cabsiye oo ka hadlayay kulankan ayaa sheegay in bulshada ay kala shaqeynayaan sidii loo horumarin lahaa nolosha iyo deegaanka. Ibrahim ayaa tilmaamay in ururkiisu uu diyaar u yahay inuu door weyn ku yeesho dhisidda dekad kalluumaysi oo ay yeelato degmada Lughaya oo ah magaalo xeebeed ku taalla badda cas ee gobolka Awdal. saddex sano soo guuranayay sanadkii hore dhismo ururka iyo sidii looga dhigi lahaa hay'ad magaca oo accountable ah oo dadku xaqooda ay ka dhex arkaan magacooda ay ka dhex arkaan. marka gabadhaayoo kale in loo gurmado kalluunkaasi ay soo qabsato caruurteeda ay siiso iyo aan socda. waxaa iyaguna halkaasi hadal ka jeediyey xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliland kaga jira gobolka Awdal qaarkood, kuwaasi oo sheegay inay taageersan yihiin fikirka dhismaha dekadda kalluumaysi ay qorshaheeda soo bandhigeen ururka Ardaa. لما تلقين كريو أنا متخيل كاميرا من قريب كمدا كده الدينو واحترم علينا كذا كارنو بدي نقول تيمان تكلم كيني طبعا ما له خلنا ما له بكرة يوم ما كوريسا تسلموا بكرة sidoo kale madaxda dhaqanka ee shirkan ka soo qayb gashay oo shirkan hadal ka jeeday iyaguna si diiran soo dhaweeyay qorshe ay soo bandhigeen ururka horumarinta ee Ardaa oo walaalaheen Ardaa ay mudaba ku soo howlaneen hadda maanta ay nool keeneen oo ay nagu wareejiyeen oo guddi loo sameeyay magacyadooda laga sheegay waxaan u mahadnaqanaa Ardaa kaga aqoon-yahanada qurba joogga ee soo diyaariyay waxaan farxad aan ugu faraxsanahay waxqabadadan aqoon-yahankii bulshadii u dhalatay gobollada galbeedka Soomaaliland abadiyahan dambe ay la soo kala baxday maanta aan joogno Ardaa ayaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. shirkaha usheegii waan taabanay, Almuud Foundation waan taabanay, waxyaabo kale oo aanan magacooda koobi karin oo dhulkan ka dhacayna waan taabanay. idinkuna waxaad naga dhergiseen aragtidii iyo qoraalkii halkaa lagu qoray, waxaad teentaanna waa laydin sugi. wasalaamu calaykum. afka reer waxyaab baan ku hadlaya meelaha dadku wax isku darsanayo xitaa waxaa la fiiriyaa dadka ku nool tolkayo marag buu ka yahay kolkii tolku isqabtaa tolku markuu isqabtay la qabe bartanka cid istaagta dadka reer waxyaab baa jiray Ardaa diyaar baan u nahay inaan wax la qabanno, diyaar baan u nahay waxaan arkayna kusoo koobayaa waa amru shuura baynahum wa mimma razaqnaahum yunfiquun. ومن هي لكم تنامي حلتلوا الله ولا تشي ولا تشلا وحي خيرات عنا محبوب هي ديار بانون هاي تشي وقالناي إنه محبوب حنا ديار بانون هاي. gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal ayaa isaguna tilmaamay hawsha ururka Ardaa oo wada inuu yahay mashruuc horumarineed oo u baahan taageero la isla barbar taago. wasiirka dib u dejinta ee Soomaaliland Cabdirasaaq Ali Cismaan iyo wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland Faarax Cilmi Geedoole ayaa iyaguna soo dhaweeyay qorshaha ururka Ardaa ay rabaan inay ku dhisaan dekad kalluumaysi oo ku taalla magaalada Lughaya. waxaana wasiiradaasi sheegeen inay wax weyn ka tari doonto dhismaha dekadaasi baahida iyo abaaraha daba dheeraaday ee jiidahaasi ka jira. ururka Ardaa ayaa noqonaya mid ku soo biiray ururada dhinaca horumarinta ka wada gobolka Awdal ee laga aasaasay qurbaha. Haashim Sheekh Cumar Good, Somalisat TV, Boorama.